بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلشدة أورجانيك شوب صوماليا DXN وسلامتهين إلهي خير هاي السيو مركلة عندنا مركز سوينا ما عرفتي إلهي بقى مهد إسكال لكن كذا مهد علينا الناس ذو قرص بدن سؤالها يا ما عرفتي يسات أوجو معناها هيلون تين كورقبك رجورتينا أما أوجدين aad ugu dadaalaysan inaad ogaataan markasta wax dabiici ah oo soo alla u abuuray ah oo aad markaas ama idinku cuntaan ama dadka in ku hareeraysan alla wadaagtaan ama waalidkiin ama walaalkiin ama dadkii markaas aad leedihiin alla ilaahay waa u baahan yihiin alaabtan iyada ah oo baahi bay u qabaan midda kale oo rabna inaad la wadaagno waxa weeye anagu waxa aan haynaahu waa cuntadaas oo ugu talagalnay inay kaasho kaabiso unugyada jirka ku kaalmaydo inay iyagu iskana dhiciyaan cadowgii iskana nadiifiyaan jirooyinkii qofkiina oo ahaa qof caafimaad qabo runtii korkiisii wada miisaaman yahay hadday noqoto xagga gudaha iyo hadday noqoto xagga dhogorta muuqaalka oo banaanka ay noqoto saas awgeed waxyaabaha culus oo jirooyinka adag iyo oo markaa qofku inuu la badbaadiyo u baahan yahay waa hawl loogu talagalay maaragtay dhaqaatiirta sharafta leh ay shaqo ku leeyihiin weeye iyo daawooyinkii markaas loogu talagalay inay qabtaan laakiin anagu waxa weeye waxaan ku talagelaynaa markii qofkii cudurkii oo u qaata daawooyinkii inuu helo nafaqo oo isaga dhiciyo cudurkaas inuusan mar kale ku soo noqon amaba uu awood u yeesho inuu dhibkiisii iska xakameeyo oo iska ilaaliyo lan kor nafaqaysan baa wax iska ilaalishan soomaaliduna waa carabtuna waxay tiraahdaa alcaqlu saliim fi ljismi saliim yacni waxa weeye caqliga fiican oo caafimaadka qaba jir fiican oo caafimaad qaba ayuu ku jiraa weeye qof jiran waxa uu kugu soo kordhinaya maanta marka productiyada ama muntijaadka ama badeecada taala organic shop qaybo kamid ayaan maaragtay hore uga hadalnay marka maanta waxaan jecelnahay inaan kor istaagno mid kamida midkaas oo runtii aad iyo aad u faa'iido badan magaciisana la yiraahdo Cortesip la yiraahdo Cortesip wuxuu ka tirsan yahay groupka mushroomka ku jira noocyadii aan sheegnay oo 38 kun oo nooc ahay nooc kamid ah weeye laakiin fawaa'idiisu isagu markaan oo kale maadaama kii hore oo ahay mid guud oo si guud jirka wax uga qabanaya mushroomkii guduudnaa oo sheegnay 6 xabo si guud ay u qabanayaan isagu si khaas ah ayuu meel khaas ah ayuu ku leeyahay oo faa'iido u leeyahay marka oo ay tahay in qofka markaa bukaan socodka ah ama qofka raba inuu is ilaalisho muhiim ah anagu dadka jiran kaliya inaan wax siino laakiin waxaan ugu talagalnay muntijaadkan ama productkan ama badeecadan dadka ismoodiya iyagu inay caafimaad qabaan inay iyagu uga baahi badan yihiinba dadka kale oo ay tahay in iyagu waxay haystaan oo caafimaad ay ilaashadaan oo ay intaysan dhicin uusan sugin qof marka Cortesip runtii wuxuu aad ugu takhasus ku leeyahay oo quudintiisa iyo nafaqayntiisa ay si xoog ah ugu gooni leedahay xagga wadnaha dhib kastoo ka jira wadnaha xaggiisa aad iyo aad ayuu u fududaynayaa xayrka shiilka nafaqaynta garaacistiisa uu habeeyo nafaqo gooniyoo iyo fitamiinaad fara badan uu u baahan yahay wadnuhu ayuu aad ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu gooni yeelay noocan geedkan la yiraahdo Cortesipka wuxuu kaloo aad ugu fiican yahay qaybta neefta dadka neefta dhibka ku qaba ama dadka markay laba jeer socdaan hore ka daalaya ama dadka maartay jaranjar haday fuulaan xogo daalaya waxyaabahaas neefta aad iyo aad u fiican yahay inuu uu miisaamo oo ay neef sidii qofkii ugu talagalay wadnihii iyo neeftii jirkii isla socodkoodii garaacidoodii ay si fiican ku socdaan midda saddexaad oo kale u fiican yahay waa beerka runtii beerka aad ugu fiican yahay siba dadka tiifowga qaba bahalkan la yiraahdo xanuunada ku dhaca beerka oo eega iyo biida iyo sida kale leh awood wuxuu u siinayaa in jirku awood u yeesho inuu runtii iska dhiciyo oo isagu maaragtay iska difaaco bahalkan marka dambana waxaa laga yaabaa inuu ka takhaluso jirku laakiin waxay ku xiran tahay qofka iyo hab isticmaalkiisa iyo soo isagoo isu daryeelo laakiin haddii ay tahay afar cishaan wadaa waa joojinaya daldhowr taas ma aha xataa dhaqaatiirtu daawooyinka ay soo qoraan mashaakilka ay ku qabaan maaragtay customerkooda waxa weeye inaynaba iyagu dhakhtarkii baa la dhegaysaynba oo warkiisa aan la maqlayn biyo cab soco hore u seexo noloshaada wax ka bedel iga dhaafaa lee waa naqaanaa midka afraad oo qabanaya waxa weeye keliyaha dhowr ciladood baa ku jirta ima inuu cudur soo haayo oo miisaankoodii ama isu dheelitirkoodii oo dhaawacmay nadiifintii kaadidii iyo suntii iyo jirka ay ka nadiifinayeen amaba inay halis u yihiin dhagax inuu ku suubsamo ama dhagax ku suubsamayba intaasoo dhan wuxuu awood u leeyahay geedkan waqti dheer inuu ku kaalmeeyo keliyihii iyo jirkii in ayagu ay dhibkan iska qabtaan ku kaalmeeyo
oo awood uu u yeesho mararka qaarkood xataa inuu jirka awood u yeesho inuu inta burburiyo dhagaxan iyo wasaqdan iska fariisatay oo jirka awood u yeesho inuu iska soo saaro marka laakiin waxay u baahan tahay waqti waxay u baahan tahay biyo badan oo dhacbo waxay u baahan tahay qofku inuu socod suubiyo si ay raqaaqaas hadday wax jireen ay u soo baxaan marka waxaan aan ka hadlaynana waa wax cilmiyeysan oo macnaha si cad dad isticmaalay iyo qoraalaba la maaragtay marka awood waxa uu leeyahay inaan productkan aan ka hadlayno idinku google-ki iyo meel kasta ka raadisaan laakiin annaga insha Allah taala waxaan noogu imaanaysaan producti maaragtay nadiifa sidii Allah u abuuray wax dhibaato oo dhinac socodana aan lahayn ama afka qalad lagu yiraahdo side effect ama salbi lagu yiraahdo soo dhinac socodkaas inuu qofku ku soo noqdaan ka ilaalinayna kaaga sii daran haddana awood wuxuu leeyahay productyadahan awood wuxuu leeyahay aynu hayno insha Allah taala in qofku waxa uu qaadanayo daawooyinka uu qaadanayo dhibka ay leeyihiin oo dhinac socodka inuu ka dhiciyo jirka kana faa'iideysta daawadii oo dhakhtarku soo qoray marka intaas oo faa'iido ayaa ku jira wuxuu kaloo aad ugu fiican yahay kaadi mareenada wuxuu kaloo aad ugu fiican yahay awood siinta xagga awoodda aad iyo tiirada intaba awood uu leeyahay maaragtay runtii waa geed aad u fiican aad u bacrimiyaa siiba ragga xaggooda iyo hormoonada u baahan yihiin haddii ay maaragtay ay jiraan nafaqa darri haysa dhankaas hormoonada iyo wixii lamadi iyona haysana awood u siinaya inay nafaqoobaan marka cortisol waa geed runtii aad iyo aad u fiican afartaas meelood tilmaanay ayuu si gooniya isagoo awood ugu leeyahay walow ay fawaa'id kaloo fara badan oo dhinac socda uu leeyahay geedkan asaga cortisol marka waa productyada aan hayno kuwooda runtii ugu qaayaha iyo qiimaha badan ayuu ka mid yahay waana aad iyo aad u faa'iido badan yahay energy badanna uu ka helayaa qofku ragga ordaya sportiga dhan kastaba uu u fiican yahay marka cortisol waa product aad u fiican runtiina idiin faa'iideynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala